haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh. Soomaalidu waxay tiraahdaa tala adaa ku nool ee iyada kuguma noola. Beri baa waxaa kayn doog iyo barwaaqo ah ku wada noolaa quraansho iyo anyax. Waxaa lagu jiray xilli dhulka uu doog iyo barwaaqo ahaa. Quraanshada maalinkii oo dhan waxay soo aruursan jirtay cunto maalmeedkeeda iyadoo sii dhex qaadaysa beeraha, halka uu anyaxa maalinkii oo dhan waqtigiisa jiif iyo ciyaar ku lunsho isaga oo ku damaashaadaya dhirta doogga ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa guutadii quraanshada ahayd oo sidata mirihii ay soo aruursatay ayaa mid ka mid ah quraanshadii baadaal dartii socon kari weyday. Anyaxi ayaa maqlay shanqartii socodkooda. Waxa uu la yaabay oo isweydiiyey sababta ay miraha tirada badan leh u xambaarsan yihiin. Intuu soo kacay ayuu u yimid quraanshadii oo halkeedii ku nasanaysa. Markaas buu weydiiyey, waxaan oo raashin ah xaggee u wadaan, ma marti baa idin soo socota? Maya, waxaan isku diyaarinaynaa oo na soo hayo xilligii jiilaalka. Godkeena ayaan u wadanaa raashinka si aan ugu kaydsano, baa quraanshadii ku jawaabtay. War xaggee u degdegaysaan? Dhulku waa wada doog, waqti badan baa ka haray jiilaal. Goormay raaxaysanaysaa haddaan maalintii oo dhan aad shaqayso? Kaalay aniga ila baashaal oo iska daa shaqadan, baa anyaxi ku yiri. Haddii aad hadda damaashaado, maxaa samaynaysaa jiilaalka markuu yimaado? Baa quraanshadii weydiiday. Markaas buu ku yiri, aan gaarno horta, markaas baan ka fikirayaa, hadda waan iska damaashaadayaa. Quraanshadii baa aragtay xumidiisa. Intay la yaabtay bay socodkeedii meesha ka sii waday, iyada oo dhabarka ku sidata mirihii ka daba tagtay guutadii quraanshada ahayd. Anyaxi baa ciyaartii iyo damaashaadkii meesha ka sii watay oo diiday inuu shaqaysto oo wax meel sii dhigto oo isku diyaariyo jiilaalka soo socda. Wixii la joogaba waxaa la gaaray xilligii jiilaalka ahaa. Gaajo iyo abaar xun baa dhacday. Dhirtii oo dhan baa qalashay, wax roob ah ma di'in maalmo badan. Anyaxi godkiisa baa biyo ugu soo galay oo gaajo iyo macluul baa soo wajahday. Wuxuu sameeyo ayuu garan waayey oo aad buu u daalnaa una gaajaysnaa. Markaas buu wuxuu soo xasuustay hadalladii quraanshada ay ku tiri. Waxa uu ka shalayay waqtigii muhiimka ahaa ee ciyaarta iyo damaashaadka kaga lumay. Wuxuu sameeyo markuu garan waayey ayuu u soo dhaqaaqay dhankii iyo godkii ay quraanshada degneed si uu biyo iyo cunto u weydiisto. Kolkii uu albaabka godka yimid buu wuxuu ku yiri, war i caawiya, war i caawiya, war i caawiya. Quraanshadii baa maqashay qayladhaantiisa oo ku soo baxday. Waxay weydiisay waxa helay oo la qaylinayo iyo sidee wax u dhaceen. Wuxuu u sheegay in gaajo iyo haraad xun hayso oo hadduu waqtigiisa ka faa'iideysan lahaa oo shaqaysan lahaa oo wax meel dhigan lahaa maanta aysan sidaan ku dhacdeen. Quraanshadii baa soo dhaweysay oo wuxuu cuno oo caawisiisay ilaa xilliga jiilaalka laga gudbay. Sidii buuna anyaxi kaga gudbay gaajadii iyo rafaadkii. Dulucda sheekada waa in qof walba mirihii uu abuurto maanta uu guranayo berito. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh.